أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. inkastoo ay maanta tahay maalintii koowaad ee ciidulfitriga isla markaana ay dad badan oo muslimiin ah u dabaaldegayaan farxadda ciida ayaa haddana maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe waxa ay salaada ciida ay ku ogeen barxadda weyn ee xabsiga dhexe magaalada Muqdisho. لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. waxaa kaamirooyinku ay soo qabteen maxaabiistan oo si farxad leh u oogaya salaada ciida waana qayb ka mid ah farxadaha ay dadka muslimiinta ah u dabaaldegaan maalmaha ciida. الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر. marka ay salaada dhameysteen ayaa waxaa loo jeediyay dardaaran iyo sidoo kale hambalyo la xiriirta farxadda maalinta ciida. inaanoo muslima aaba xiraatiine inaan salaada inaan idin la dukado oo idin diyaariyo oo salaada aan ku oogno taas ayaan ka doorbiday inaan ilaahdo inaan magaalada aado. hadda mar aan salaada ku jiray safka dambe ku jiray waxa ii soo baxday inaan saan u dhanna hadda qaar baa guriga ku jira sida aan u dhannahayba inaan u dukan karno waayo qolalkaas marka la soo bixiyo qolalkaana inta badan la soo bixiyo inta kale albaabteeda loo furayaa bartooda kala qabsanaa sida shariicadu sida culimadu noo sheegtay waa joogta mashaaqadu haddaan sii joogo sii gaarna waa sii ballaari doonaa qaabka salaada loo dukanayo iyadoo hadda ciidda noogu xigto midii weyneed iyadana ilaahay wanaag nagu gaarsiiyo marka waxaan rabaa sidaad u soo dukateen oo isu diyaariseen in loogu dadaalo cibaadaadka kale in loogu dadaalo ayaa loo baahan yahay. maanta waxaa loo baahan yahay in la iscafiyo sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi maxamed ka sugnaatay cafisku wax qaaliya waay. dad badan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin annaga waa dulmanahay haddaa dulman tahana ilaahay baa ku abaalkeeda ku siinaya haddaa adigu dhiblow ahaadna meeshaana ummadda lagaaga xanibay haddii lagugu xanibo laguma nacbee waa lagugu jecel yahayo waa lagugu dhaqaalaynayaa. waad ogsoontihiin meeshaan kuwa idin ilaalinaya waa kuwa derbiyadii saaran yihiin ma dukan waxaan filayaa horna ilaahay ka rajaynayaa waa kuwa inaad dukataan kuwiisa idin noo suurogeliye waay ayagana xasanaadka ilaahay waxa ka siiyo. marka waxaan rabaa qalbigiina inaad wanaajisaan dalkiina joogtaan dal shisheeye ma joogtiin walaalihiin ayaa la joogtiin hebelow walaalow in adeerow nin wala saasuu leeyahay kuma xiriin dal kale. marka bacdama dalkiina joogtiin lagama yaabo waddan kale oo ajaanib oo joogtiin inay saan idin suura geliyahayeen suuragal maaha mana dhici lahayn. waa walaalka waa naabtiga waa haddaan la kuuro waa saaxiibka waa macruufka wax badan baan isku haynaa meesha ku haynaa. marka waxaan rabaa hal la iscafiyo cafiska uu qayr badan hal la iscafiyo cibaadada ilaahayna meeshaan waa meesha ugu fudud oo aadan ku haysan hawl kale iyo shaqo kale ku mashquulinayn waxaad u joogtaa waaba cibaado taasna in lagu dadaalo loo baahan yahay. ilaahay baa haddaad cibaadaysato dhibkaaga yasiraaya. marka waxaan idin leeyahay ilaahay iidaan iideeda kale kuwa baxana oo u dhammaad waqtigooda nabad allah ku gaarsiiyo wixii ku harana kuwa wanaag ku gaara allah naga dhigo. Axmed Xasan Ibraahim Warsan TV Muqdisho.